waqti ka hor waxaa boqor aad u arxan daran oo la yiraahdo Firaadsiin ayaa xukumi jiray magaalada Vijaynagar. Dhammaan muwaadiniinta way ka cabsanayeen naxariis daradiisa. Firaaj wuxuu lahaa ay magaciisa yahay Jack, kaasoo aad ugu jeclaa wax waliba. Subaxyada ka mid ah, Jack wuu dhintay. Firaadsiin waxa uu sameeyay aas wanaagsan oo la yaab leh. Dadka oo dhan waxay yimaadeen halka oo eyga lagu gubayo. Firaadsiin aad ayuu u farxay markuu arkay in ay dadku aad u jecel yihiin. Wuxuu dareemay inuu yahay boqorka ugu caansan dunida. Maalmo kadib, Firaadsiin wuu dhintay, laakiin cidna ma aysan ka soo qaybgelin geeridiisa. Sheekadan waxa aan ka baranayno waxay tahay ixtiraamku waa wax ay tahay inaad kasbato. Kuma khasbi kartid dadka kale inay ku ixtiraamaan. Waxaa jira xariiq khafiif ah oo u dhaxeeya cabsida iyo ixtiraamka. Mid waliba oo naga mid ah waa inuu fahmaa oo uu sameeyaa sixitaanka lagama maarmaanka ah oo shakhsiyadeena.